dhalinyaro cimrigu waa wax yar cimrigaaga qayb ka mid ah tuuri waqtigaagu yuu kaa dayacmi waa cimrigaagii adigoo aan lagaala tashanba dunida lagu keenay markaad ka baxaysana cidi kaalama tashanayso intaa yar baad joogaysaa markaa labadaa u dhexeeya imaatankiina lagama talagelin tegisteedana lagaa talagelin maayo se intan yar waxa lagu yidhi bal adigu ikhtiyaar laho oo wax samee intaasaad joogaysaa kooban oo maxay ah 50 sano 20 sano 60 sano 70 sano qofba in aanu garanay intay noqonayso intaa yar waxa lagu yidhi laka alxurriya intaa yar ayaa lagu yidhi ba aakhirana lagu xisaabinaya intaa yar baad mubtala tahay intaa yar maxaa laga rabaa markaa inaanay lacib iyo lahwi iyo orodkaaga lumin markaa waqtigaagu ama adduun midhaha ka dhalinayo anfac ku leeyahay ama aakhira anfac ku yeesho labadaa waxaan manfac ku lahayn iska dhaaf dadka waxaa u dhexeeya waqtiga siday uga faa'iidaystaan ninka dhallinyaronimadiisa invest garaysa markaa istithmaar maalgashi ninka dhallinyaronimadiisa maalgashada waqtigan ka warramaya waqtigaagaad waxaad ku maalgashanaysaa aakhira iyo adduunba wuxuu noqdaa dunida dan dadka faa'iidsay somaydan maqal hebel baa succeeded buu noqday naajix ninkaa hebel weeyaan macnaheedu waxa weeyaan markuu dhallinyarada ahaa buu si fiican u dadaal wuu soo daalay markuu dhallinyarada ahaa midhihii buu hadda guranaya waqtigan markaa waxaa u baahan tihiin inaad xoog uga fakertaan waanay cayaarida kaga lumin imika waxaa laga yaabaa marka aabba ama hooya ku tidhahda wax akhri inaad wax akhrido intaa yaroo aad u arkayso qasab inay tahay wax badan keeni mayso inta midhaha keentaa waa inta adiga kaa soo go'da waa markaad adigu dareemto waqtigaaga inaad u baahantay inaad ka faa'iidayso inaad wax ku barato cilmi ku barato cilmigaad doontana waad baran karaysa laakiin wuxuu u baahan yahay in waqti iyo juhdiya in la geliyo haddaad maqasho nin baa caalim noqday nin baa khabiir noqday nin baa ka noqday dadka miyuu ka waqti badnaa maya intan dadku haystaa unbu haysta 50 iyo 60 iyo 70 unbu jira laakiin intan buu isku dayay inuu sida ugu fiican uga faa'iidaysto cimriga aynu ka warramaynana waxa ugu sii fiican kana ku jirtaa waayo kanaad imika ku jirtee dhallinyaronimada ah waxay idhahdaan waa cimriga aan cidi kula lahayn markaad weynaato reero iyo caruuro iyo shaqo iyo maxaa la yidhaahdaa cilaaqaad ijtimaaciya iyo waqtigaaga waa lagula yeelanaya markastoo da'daadu sii korodhana waqtigaagu wuu soo yaraanaya waayo dadka kugu xidhmayaa ka sii badanaya intii hore laakiin ninku markuu dhallinyaro yahay cidna mas-uulka ma aha carruur iyo reerana ma daba socdaan bulshada xidhiidh badan lama laha waa naftiisa isaga keligii waqtigiisa leh laakiin iyaga ceebta haysataa waxa weeyaan waxaanay aqoonin how to use it siduu u isticmaali lahaa siduu waqtigan uga faa'iidaysan lahaa kaas ma ka lumay dhallinyaro wax kastoo aad rabto inaad noqoto waxaan isleeyahay laba waddoon baa lagu gaadhaa waddada koowaad waa ilaahay cabsidii ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy waman yattaqi illaaha yajcal lahu min amrihi yusra ciddii ilaahay ka cabsata ilaahay arrimihiisa waa u fudaydiya ilaahay cabsidiisa haddaad laasimto ilaahay arrimihiisa wuu kuu fudaydinaya waxaad arrin leedahay dadku markay fakerayaan waxay idhaahdaan waxaan rabaa inaan diinta barto oo cibaadaysto waayo aakhira inaan badbaado adduunkana inaan xoogsito adduunka iyo aakhiraba ilaahay baa iska leh haddaad adduunyo raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa haddaad aakhiro raadinaysana ilaahay baa laga raadiyaa laba wadoo kala gedisani ma jiraan waxaba biyadihi lmulku wahuwa calaa kulli shayin qadiir soo qur-aanka kumaydan arag biyadihi lmulk ilaahay baa mulkiga dhammaantii iska leh wax walbana isaga awooda qofka mu'minkee dhab tahay markaas adduunkana ilaahay buu ka raadiyaa ilaahay macsidi kuma raadiyo adduun markuu raadinayo ilaahay buu ka raadiyaa subxaanahu wa tacaala waayo ilaahay baa gacantiisa adduunkao dhami ku jira isagaa maamula taa ogeed baa qofka mu'minkii subaxii markuu soo tooso wuxuu yidhaahdaa maxay raditu billaahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وإننا وامحي إلهي ما ملكي سان رالك النقضي رب إنما هو سيدي ومالكي ومدبر الكون إلهي ما ملكي سان رالك آحي إسلام نمضنا دين يدقم بانو هستا وضضا مريي ويان نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقت المامحي والنبي تسعي وضضا إذا قفك مؤمنك واقو مركو بريو إلهي حقي سوكعا
إلهي الرالي هشيسي الرادية حلال يا حرام وحكو الرادية وحلال لو أضوطا حرام وكتغا مركا وركا يقوكو بني وحويان هداد الدنيا دون يسو إلهي بيقعنتي سكو جرتا مالك اللي قمر راديو هداد آخرة دون يسينا تبدبادنا إلهي بيقعنتي سكو جرتا مالك اللي قمر راديو الأولى والآخرة صغرك كبيرا نرك الله بضب إلهي وأسكاري وإن لنا للآخرة أقو حقا والأولى لبضب إلهي بالي أنه رانا يساق عليه قدنبنا يساق عليه يساق مركا محاوح لك الرادية رالي قليل تيسا هي عبس الشديس ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا هذا اللي بقوت ماده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومركا اللي بقو قبصته إلهي وحليه مخرج بقو فريا مركا كلنا أرمها قال وفو ضيدينيا والوغو إصلاحينيا إذن إلهي عبسيديس القرآن كيف يسكور بيكو صار ارتاض ملاينس هذا اقتربضا ومن يتق الله يعظم له مئة يا قرنيا يا يعظم له هاي ومن يتق الله يجعل له فرقانا مصارا ومن يتق قرآن هذا يكتب ومن يتق الله نرشور دم بيكو صافسي سبت جاوغيت با إلهي وحو نقول الماميا أمديه إذنكو الرئي إذنك بوحن وإذن دردار ما إذن فرّي أن اتقوا الله إلهي كعب صدا هي دمانت إلا إذن فرّي بس هو قدر كواد قدر كان كواد وحشيقيا الدنيا آخرة إلهي بيقعنتي سكوتشر تاي سيقها لك الرادي ولي قاها يسكو ديرنا إلهي مع سيدي وعقل رادي هذا الدنيا دون سنة إلهي باهية آخرة هذا دون سنة باهية قدر كاللبادة هذا اللي يرتنا الرباية دي شيئا وحويا عمره هو وحيا أذكر الله قال تشبه الدنيا للغو كيرا الدنيا ما كان دمنا يسير عندنا الله قال ما تشبه